الله عليكم ورحمة وبركاته. الموضوع كصابسا أخلاق دي دقن كي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وموضوع عاد وقد بلارا، ولذلك بعض العلماء كتاب دورية طبعا مجلدو دايك قرين نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، وكتاب دورية طبعا مجلدات كقوبا haddii aynu intiisa kaloo dhan intaynu iska tagno mas'alo kasta markuu ka warramo wuxuu keenaa baab la yidhaahdo almathalu tatbiiqiy, tusaale nebi maxamed ku saabsan calayhi salaatu wasalaam oo isagu sameeyey. haddaynu isnidhaahda amhilada akhriyo quri ma dhammaanayso, waayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisa inaynu ka warrannaa waa inaynu islaamkii ka warrannaa, waayo nebi maxamed wuxuu ahaa islaamkii oo xayiya oo nool oo caga ku soconaya. sida awgeed ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam anas ibnu malik xadiidka sheekhaynku warinaya wuxuu leeyahy kaana الnabiyu salى اllahu alayh waalihi wasalam axsana الnaasi khuluqa. nebi maxamed wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam bini aadam la arko kii u akhlaaq fiicna. safiya bintu xuyay oo haweenkii nebiga ka mid ahaydna waxay iyana leedahay maa ra'aytu axsana khuluqan min rasuuli illaahi sala allahu alayh waalihi wasalam. xadiidka tabrani la yidhi isnaad xasanuu ku warinaya. maan arag bay leedahay wax nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ka akhlaaq fiican, bale dhaqanka iyo akhlaaqdii nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kay khadiiji u daliishanaysay nebinimadiisa. markii waxyiga koowaad nebiga uu ku soo degay calayhi salaatu wasalaam gaaru xiraa isagoo cabsanayuu soo noqday, dabeetana khadiija oo dejinaysa xadiidka saxiixayn ku yaalla waxay leedahay kalaa wallah maa yukhzika allahu abada inaka latasilu alrixam wataxmilu alkal wataksibu almacduum watuqri aldayf watuciinu calaa nawaa'ib alxaq. waxay tidhi ha ka yaamin cabsi iyo dhib iyo mushkiladii inay ku haleesho, ilaahay baan ku dhaartay inaan ilaahay weligaa ku hoojinayn bay leedahay. waxay daliishanaysaa qof kastana inaan ilaahay hoojin. waxay leedahay waxaad ahayd mid qaraabo xidhiidhiya, hadda waa qabla nubuwa, waa intaan waxyigu ku soo degin ayay dhaqankiisii ka warramaysaa siduu u dhaqmi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam. waxay leedahay markaa innaka la tasilu alrixam, waxaad tahay mid riximka xidhiidhiya, wataxmilu alkal ka culusna xambaara. alkallay thaqiil kaducafaa walyataama walaraamila walmasaakiin, dadkaasi aan xoogsan karin ee ducafada ah kuwa culusna waad xambaartaa. wataksibu almacduum, waxaad kaloo sadaqaysataa la baxdaa dadka siisaa ashay almacduum kaan dadkuba gaadhin ee la helin. watuqri dayf, martida waad soortaa. watuciinu calaa nawaa'ib alxaq bay leedahay. xawaadis iyo mashkilaadka bini aadamka waxa kaarisa ku dhacoo dhan reer nebi aadamna ku u gargaara baatay, oo wixii mashkilad oo dhan bini aadamka ku ay ku soo hirtaan oo u gargaaraa tahay. sidaa awgeed khadiija waxay ka dhigaysaa akhlaaqda nebiga fiicani inay daliilu tahay calaa sidqi nubuwati, nebinimadiisa. walidaalika ayuha alaxiba, nebigu wuxuu ahaa axsanu nnaasi khalqan wa khuluqan. abuurna mid qurux badan buu ahaa oo shakligiisa iyo mandarkiisa sare qurux buu ahaa, dhaqanna mid qurux badan buu ahaa. idan alcadama kullahaa baa ku ururtay, weyni dhammaanteed ayuu mithaal u ahaa. xataa ay tahay weynidaasi mid ay uga markhaati kaceen ahli lgarb dadkoodii wax akhrinayay. gooteegii jarmale, gabayaagii shakespeareka jarmal gootee ayaa wuxuu tilmaamayaa bini aadamnimada waxaan u raadiyey buu yidhi mithaal yaa tusaale u noqon kara bini aadamka, dabeetana fawajatuhu fii muxamada buu leeyahy. muxamed فوجدوا في محمد عليه الصلاة والسلام
nebi moxamed baan ka helay buu leeya inuu yahay ka tusaale bini aadamka u noqon kara kathiir baa soo arooray oo warkaasiya laakiin waxaasoo dhan waxa kaaga filan ilaahay khalqiga abuuray ee isagu yaqaanay ee muطalic ahaa calaa khaa'inati alacyuni wamaa tukhfi الsuduur ilaahay og quluubta waxa ku jira iyo ishu waxay xaddo ayaa isagoo nebigiisa ammaanaya wuxuu yidhi wainaka la calaa khuluqin cadiim markhaati kaleoo loo baahanyay ma jiro ilaahay baa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy wainaka la calaa khuluqin cadiim waa jumla ismiya biluga alcarabiya oo ina xarfu tawkiid ku bilaabantaa oo laamu xagga dambe ku jiro waa adawaadka af carabiga wax lagu adkeeyo dhan baa laysugu geeyey yacni waxa weeyaan waxa hubantiya inaad tahay mid dhaqan fiican baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala sida ogeed ayuha alaxiba waxay culammadu yidhaahdaan ma jiro xubinta khayrka ka mid ah dhaqamada khayrka xubin ka midii ma jirto ilaa iyo ilaahay rasuulkiisu awfaru xadin buu yihi dheefta ugu weyn buu wadaagaa ayuu haystaa ama qimada halka ugu sarraysu ka joogaa taasina waa mid ay uga markhaati kaceen kuwii u dhowaa iyo kuwii ka dheeraa labaduba kuwa cadowa iyo kuwa sidiiqaba gaaladii aan nebi maxamed rumaynin ayaa uga markhaati kacday bale gaaladan dambeba ka kaalay kuwii la noolaa ee la diriraya dagaalku ka dhexeeyey qurayshi maxay lahayd alamiinu saadiq waa ku run sheega ah oo aamina bay ku tilmaamayeen waa kuwii la diriraya caynkaa ku sifaynaya walidaalik nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd akhlaaqda fiicani dhaqankiisoo dhan ficilkiisa siiradiisa wax walba waynu ka arki karnaa saxiixu muslimka xadiidka ku yaalna caaisha ridwaan ullaahi calayha wacalaa abiha ayaa waxaa la weydiiyey ka waran dhaqankii nebiga noo sifee baa la yidhi siduu ahaa akhlaaqdii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qaalat kaana khuluquhu lqur'aan haddaad rabtaan nebi maxamed akhlaaqdiisii iyo dhaqankiisii dhaqanka nebi maxamed wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam qur'aanka bay leedahay yacni nebigu wuxuu ahaa qur'aan soconaya wax kasta oo qur-aanku ku baaqay oo akhlaaq fiican ah dulqaad leh oo cafis leh oo tawaaduc leh oo geesinimo leh oo waxbixin leh oo wax kasta oo bini aadam lagu ammaano qur-aanku sheegay ama layna faray oo qur-aanka ku soo arooray nebigu calayhi salaatu wasalaam ku fuliyey buu ahaa walidaalik awaamirta iyo nawaahida waxa qur-aanku ina farayo wuxuu inaga reebayba nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuu ku dhaqmay waayo wuxuu ahaa dee qur-aan soconayo ahaa baynu odhan karnaa qur-aanku waa erayo qoran nebi maxamedna waxaa tarjama camaliya practicalkii wixii aayaadkani ay sheegayeen oo practical ah real lifeka laga hirgeliyey nolosha lagu طabaqay ayuu nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam caطaa baa wuxuu yidhi waxaan ku idhi cabdillaahi bni camr bn alcaas akhbirna can sifati rasuuli illaahi fi towraa ibni camr ibn alcaas wuxuu ahaa dadkii kutubta horena wax ka yaqaanee bartay dabeetana waxaan idhi buu yidhi towraad maxaa nebiga way ku sifaynaysay wuxuu yidhi beajal wallahi inahu lamawsuufun fi towraati bisifatihi fi lqur'aan sida uu qur-aanka ugu sifaysan yuu ugu sifaysnaa oo ah yaa ayuha الnabiyu inaa arsalnaaka shaahidan wamubashiran wanadiira waxaa kaloo ku taallay buu leeyahy waxirza lilummiyiin anta cabdii warasuulii samaytuka almutawakil laa fada walaa galiida walaa sakhaabin fi اlaswaaq walaa yadfacu sayi'ata bisayi'ah walakin yacfu wayagfir walan yuqbidahu allahu xataa yuqiima bihi اlmilaة alcawjaa bian yaquluu laa ilaha ila allah ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا حديث بخاري ورينيا إذا النبي قوح قصفه بي عليه الصلاة والسلام كبلا أوفية وضدك وحو كلب اللامو ودما يسترى وتواضع يسدل لك صفيسا كو عباداتك الرب سفي عن ولا يماده كو جيسيه ku cafis badan
ku akhlaaqun bini aadam lagu ammano naxariis badan kalsooni badan waxaad ka garan kartaaba nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa la ii soo bixiyeyba risaalada nebi maxamed ba waxaa cinwaan u ah inamaa bucustu liutamima makaarima alakhlaaq aw saalix alakhlaaq sida imaam albukhaari fi ladab almufrad iyo imaamu axmed fii musnadihi bay ku warinayaan waxaa la ii soo saaray buu nebigu leeyahay inaan dhammaystiro yacni ambiyadii baa laga dhaxlay akhlaaq fiican laakiin kolba waxbaa dhinnaa ama waxbaa duugoobay aniga waxaa la ii soo diray buu nebigu leeyahay liutamima makaarima alakhlaaq dhaqanka fiican inaan dhammaystiro abi dar alghifaariy radia allahu canhu ayaa markuu maqlay in nebigu ka soo baxay maka buu walaalkii soo diray wuxuu uhi war maka tag oo meesha maka la yidhaahdo ninkaa warkiisa ii keen buu ku yidhi abi dar walaalkii baa yimi maka dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam buu indhaindheeyey waa xadiidka bukhaaru ku yaalla wuu noqday wuxuu yidhi war maxaad aragtay ra'aytuhu ya'muru bimakaarim alakhlaaq buu yidhi warkii uu la noqday abidar walaalkii waxa weeyaan waxaan arkay isagoo faraya dadka makaarim alakhlaaq akhlaaqda keeda fiican idan nebigu calayhi salaatu wasalaam xusnu lkhuluq oo dhan buu ku sifoobay xusnu lkhuluqna sida saxiixu muslim ku taalla albiru xusnu lkhuluq baa nebigu samahoo dhan ayaa akhlaaqda kiisa fiican idan waxay culammadu yidhaahdaa akhlaaqdu waa laba waa xusnu lkhuluqi maca allah wa xusnu lkhuluqi maca cibaadih ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad si fiican ula dhaqantid oo ilaahay sida fiican aad ula dhaqmaysaa waa maxay waa inaad si wanaagsan u caabudid wixii xukumee dhankiisa ka yimaada inaad kula kaluntid birida watasliim adoo raalli ka oo ku niyadsan adoon cabasha jirin ee ku niyadsan wixii ilaahayna faro subxaanahu wa tacaala wax xaraja iyo wax diiqa iyo wax cidhiidhiya iyo wax kohasha adigoo aan dareemaynin oo haddii salaad iyo zake iyo soon iyo xaj iyo kuwa lagu faray adigoo munsharixu sadriya laabtaadu ku faraxsan tahay inaad la timaado ama akhlaaq fiicnida bini aadamka lagula dhaqmaa waa kow inaad sharkaaga ka haysato nin buu nebigu yihi sidaa ye markaasuu yidhi haddaan kari waayana markaasuu yidhi sidaa ye markaasuu yidhi haddaan kari waayana markaasuu nebigu yihi sidaa ye markaasuu yidhi haddaan kari waayana markii dambe nebigu wuxuu ku yidhi haddaba sharkaaga dadka ka hayso xalaaqda halka ugu dambaysa lagaa rabaa waa maxay sharkaaga hayso dhaqanka dadka lagula dhaqmaa waa sharkaaga inay ka nabad galaan dhibtaada inay ka nabad galaan dhibtoodana inaad ku sabirtid oo dhibtooda inaad ku sabirtaa waxay keensanaysaa dulqaad iyo cafwi iyo wixii la mid ah iyo wanaag inaad dadka kula dhaqantid talaaqat alwajhi walbashaasha waltasliim iyo wixii la mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo akhlaaq wanaag oo dhan ku sifooba ayuu haddana ilaahay wuxuu ka baryi jiray allaahuma kamaa axsanta khalqii fa axsin khuluqii ilaahu sidaad abuurkayga u fiicnaysay saad ii qurux badnaysiisay korka gudahana iiga qurux badnaysay waa dhaqanka bini aadamku qofku two personalities buu leeyahy midi waa muuqaalkan nin cad oo dheer oo noocaad u egtay nin madow oo aan noocaad u egtay waa shaksi labaad baa tahay oo ah dhaqankaaga ficlanna horta ka bini aadamka qiimaha leh dadku ay ku xisaabtamaan waa shaksigaaga labaad si kasta haddaad u fool xun tahay muuqaalkaaga kan waa sancadii ilaahay inagu maale kana waa foolxuy kana waa qurux badan yahay wuxuuba waa sancadii ilaahay si kastoo araggaaga kani u eg yahay hadday akhlaaqdaadu fiicantahay bini aadamka waad hananaysa si kastoo aad u qurux badanto oo u weji casto oo u qurux badan tahay haddaad dhaqan xuntoo jacjacoor tahay waxba cidi kugu fali mayso idan labada beersanaalati ka qiimaha badan leh waa ka hoose labada dadnimo ka qiimaha leh waa kee
waa ka hoosaa qiimo badan hadday labaduba isugu darsadaanna waa nicmo ku sug saa daraaddeed baa nebigu wuxuu odhan jiray allahuma innii acuudu bika min ashiqaaqi waannifaaqi wa suu'i alakhlaaq ilaah waxaan kaa magan gelayaa waxaasoo dhan oo ay ka mid tahay akhlaaqda xumaheedu waxaan leenahay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam haddaynu isdhaahno dhaqankiisii ka warrama ma ka gayoonayno muqtatafaat culammadu tilmaamto inaan wax ka tilmaamo mooyaane waayo hal kitaab baan idhi oo nadratu naciim oo qura haddaynu qaadanno ayaa 12 majalladood oo ka warramaysa dhaqankii nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed reerkiisa iyo ahalkiisa si fiican buu ula dhaqmi jiray bulshadiisa iyo asxaabtiisa si wanaagsan buu ula dhaqmi jiray dadka uu maamuleen raciyadiisa si fiican buu ula dhaqmi jiray xataa cadowgiisu si wanaagsan ula dhaqmi jiray acdaada iyo kuwa is hayaan ayuu si fiican ula dhaqmi jiray xataa iyagoo waxay kula hadlayaan aanu wax la dool qaato ahayn iyagoo ku leh waxay u soo direen nin odayadoodii ka mid ah iyagoo ku leh waxaanu rabnaa niyo waxaan haddaad ku doonayso boqortinimona aanu boqorkaa dhigno haddaad magac iyo maamuus doonayso aan ku waxay ka dhigayaan inaanu nebigu daacad ka ahaynba diintan uu wadee maarib kale iyo dana kale inuu ka leeyahay afka kagama boodina ma odhan ma waxaasaad igula hadlaysaan wuxuu ku yidhi afaraqta minha ya abalwaliid hadalka ma dhammaysata kamuu dhex gelin kamuu goynin markuu dhammeeyey markiiba hadalka ma boobin ee wuxuu u leeyahay hadalku ma kaa soo dhammaado markuu yidhi haa buu nebigu suurad qur-aana ku dul akhriyay maxaan uga jeedaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xayawaanka iyo dhirta iyo environmentku dhaqan fiican kula dhaqmay environmentka caadiga ah ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhaqan fiican kula dhaqmay walidaalika akhlaaqdiisa ma koobi karno hadaynu eegno reeriis iyo siduu ula noolaa khayrukum liahli wa ana khayrukum liahli buu nebigu leeyahy sunani tirmidi khayrukum liahli waxaa idinku khayr badan ka reerkiisa ugu khayr badan buu nebigu yidhi dadka badh baa dabadda ku qurxoon guryaha markay tagaanna bahal ah waa dhib qofka noloshaba isku darsateen iyo caruurtaada dhashay inaad ku kakanaatid dabaddana nin fiican oo hebel laga yaqaano inaad noqotid wax fiican maaha haddaad rabto bini aadamku inuu warkaaga aqbalana waxaa laga yaabaa rag badan inay hayo waan lay maqlin islaanta waxaanu sheega ma maqasho carruurtu ma maqlaan dabeetana guriga markuu soo galo waa awaamir iyo dagaal haddaad rabto in dadku caqligoodu ku aqbalo waxaa ka horeeya qalbigooda inaad furtid qofkaad qalbigiisa furi kari weydid caqligiisa ma furi kartid qalbiga maxaa lagu furaa alxanaanu walxub walkalima ayiba qofku aad si fiican ula hadasho tusaale yar carruurteennu guriga waa ka sii cararaan markay kindergarten xadaanada meesha carruurta lagu hayo iyo iskuulkiiyo way jecel yihiin maxaa jira iskuulka markuu soo galo ama ka yari markuu xadaanada soo galo ay habarta joogtaa dhunkanaysa intay u fadhiisato ayay hag siinaysaa laabta u saaraysaa dabeetana waa soo dhaweynaysaa waa fadhiisinaysaa dharbay ka bixinaysaa markuu ka imanayana hag bay soo siinaysaa adiguna markuu guriga soo galana fadhiiso war baad ku bilaabaysaa dee iyadu kaa jeclaanaya hadday saatay waxaan uga jeedaa qalbiga qofkaa la furaa dabeetana caqligiisa kuu furmaya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy khayrukum liahli wa ana khayrukum liahli walidaalik buu la kaftami jiray haweenkiisa oo erayo uu kula cayaarayo ugu yeedhi jiray yaa caa'ish buu odhan jiray caaisho ugu soo gaabiyey yaa xumayra ya bnata sadiiq waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam xad ay biyaha markay qabaysanayaan biyaha meel qura intay wada darsadaan uu isna dhankiisa ka booba iyana dhanku ay tidhaahdo intaa iga tag ay ku tidhaahdo nebiga calayhi salaatu wasalaam idan waxay caaisha tilmaamaysaa xataa inuu la beratami jiray inuu la beratamay nebigu calayhi salaatu wasalaam intaa iyadoo ciidan lala socdo uu ka soo yaro hadheen oo iyada iyo nebigu ay soo hadheen ayuu la beratamay markaasay ka dheeraysay beriga inanta yar ahayde fududayd
beri dambe waxoogaa ay cuslatay buu yidhi kaale waa beretamaynaaye wuu la beretamo markaasuu ka dheereeyey tilka bitilka buu nebigu yidhi taa tii u tuur buu yidhi maantii horena adaa iga dheereeyey maantana ana kaa dheereeyey yacni waxaad qiyaastaa nebi moxamed oo nebiya oo rasuula oo ilaahay uu ka doortay bini aadamka oo dhan oo ummad dhan madaxweynaheeda oo inan yaroo 12 jira la beretamaya caaisha wuxuu nebigu ka dhintay iyadoo 18 jira inan yaroo 12 jira la beretamaya waxay tilmaamaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qaabku uu la noolaa reerkiisa ilaa xad caaisha la weydiiyey nebigu markuu guriga joogo muxuu qaban jiray waxay tihi kaana yakuunu fii mihnati ahli faidaa xadarat salaatu yatawada yakhraj ila salaa dee reerku u shaqayn jiray bay tihi markuu guriga nebigu joogo intuu boqor iska dhigo meel fadhiisto waxaa ha la soo qabtuun muu odhan jirin reerka shaqadiisii wax ka qaban jiray bay caaisha leedahay dabeetana haddii salaada la aadimina intuu weysaysto ayuu bixi jiray caaisha waxay tilmaamaysaa xadiidka hore saxiix muslimku ku yaalla mid kaloo imaam axmed uu warinayo maradiisa isagaa tolan jiray bay tiri oo kabtiisa isagaa yeelan jiray oo waxay raggu ka qabtaan guryihiisu ka qaban jiray bay leedahay yacni hawl midnaba iskama weynayn jirin saa awgeed buu nebigu wuxuu leeyahy ina min acdama alumuuri ajra annafaqatu cala alahl ragga barh baa dabadda ku gacan furan gurigana ku gacan adag nebi maxamedna wuxuu leeyahay arrimaha ugu waaweyn ajar ahaan waxaa ka mid ah nafaqadaad ahelka siisuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam walidaalika ayuha alaxiba imaam albukhaari wuxuu leeyahy haweenaydii nebiga safiya si ay awr u fuusho lowgiisu u dhigay inay isku dul taagto si ay awrka u fuusho yacni isaga sallaan isaga dhigaya markaasay nebi maxamed intay dushiisa isku taagto ayay awr fuulaysaa waxaad ka garan kartaa siduu ula dhaqmayey khadiijo dhimatay haweenaydiisii hore ee dhimatay radia allahu canha wa ardaaha ayuu iyadoo dhimatay buu dadkii iyo dumarkii iyo dadkii ay asxaabta la ahaan jirtay ayuu weli hadiyada u dirayay khadiijo ma noola laakiin xidhiidhin uu xidhiidhinaya iyada buu kuwii saaxiibadaheed wax u dirayay waxaan leenahay dhaqankiisu guriga markuu joogo kaasuu ahaa goob dagaal iyo meel rag isku haya markuu joogo geesi aan la loodin buu ahaa walidaalika baa nebigu calayhi salaatu wasalaam geesinimo caqliyeed iyo mid qalbiyeedba wuu lahaa ama si kale haddaanu nidhaahno geesinimo macnawi iyo mid xisiya ama si kale haddaanu si idhaahdo weliba waxaa laga yaabaa innagu waxoogaagan gaalada halkan jooga inaynu dacwo u fidino oo raganimo kala hortagna daaye in badan oo inaga mid inay salaadana xataa kala dhuumato istiraahdo yaan lagu arkin adigoo tukanaya laakiin nebi maxamed waxaad qiyaastaa isagoo keligiiya oo dunidoo dhan keligii ka hor yimi qof quroo dunidoo dhan waajahaya qiyaas waan cidiba la socon xaafadda ciddii joogtay rumaysay dabeetana bulsho dhan oo mabaadi kala haysata oo diimo kala haysata oo wax kala haysata waajahayoo leh waa qaldantiin waxaana caabudaysaana khayr kuma jiro ilaahay keligaa caabuda leh quluu laa ilaaha illa allah tuflixuu waa geesinimo inaad waajahdo adduunka keligaa geesinimo ka weyn maa jirta qof keligii mabda'iisa adduunka ku waajahaya oo ku dararsanoo kala hor yimi oo dhib oo dhami ku soo gaadhay oo wasaa'isha bini aadamka lagu halleeyo oo dhan la isku dayay in lagu halleeyo aliqraa xoolaanu ku siinaynaa madax baanu kaa dhigaynaa kan baanu kaa yeelaynaa waxan baanu kuu samaynaynaa maruu rabshada naga jooji la leeyahay shajaacadiisa xisigaana taasi waa jur'adiisu ku lahaa iyo suu geesi ugu ahaa mabaadi'diisa wuxuu kaloo geesi ku ahaa caliy bn abi aalib baa wuxuu leeyahay kunaa idaa xamiya alba'su waxmarat alxadaqu اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه هدي دقالكو واتكادا بوليه دقالكو دررتو مركا كولولاتو
nebigaanu ku gaban jirnay buu yidhi annaga waxaa noogu geysaysanaa uun ka nebiga xaggiisa ugu xiga waayo nebiga xagga dagaalka cadowga noogu xigayay buu leeyahy anas baa wuxuu leeyahay kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi waalihi wasalam أxsana الnaasi وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة نبي حابو لي دتك كيو او رقم في عن او جيسسن مالي باقيلا يدي مقالة مدينة بويري دبتنا دتكي way soo baxeen meeshii qayladu ka yeedhay colba la moodaya waa meel dagaal u taagan madiina gaala inta weerar ku haysa marka qayladii yeedhaba waxa la isleeyahay hadda cadowgii soo galay dabeetana dadkii markii ay soo baxeen ayuu nebigu ka hor yimi calayhi salaatu wasalaam abi talxa saxaabi la yidhaha faras uu leeyo leeda ah oo aan waxba saarayn intuu xadhiga ka furay ayuu intaan dadba soo bixin buu nebigu baxay calayhi salaatu wasalaam dadku markay soo baxeenna isagoo meeshii ka soo noqday buu yimi oo leh lam turaacu isagoo leh waxbaa cabsanina dhibi ma jirto nebi maxamed baa dadka ka horeeyo intuu goobtii beledu ka yeedhay ama qayladu ka yeedhay tegey ka soo noqday oo saxaabadiisii ku leh ee dhibi ma jirto leh lam turaacu xadiiska bukhaari ku yaala ay laa takhaafu walaa tafzacu buu leeyahay waxba ha cabsanina xasila markaynu eegno nebiga calayhi salaatu wasalaam siiradiisii oo dhan baa tilmaamaysa goob dagaal siduu u joogay halkan seefuu kaga dhacayeen ee dhabanada koofiyadu ka gashay ee ilkaha badh laga dumiyey ee haddana u taagna bale saxaabadu albaraa ibnu caazib baa wuxuu leeyahay niman taabiciina waxay ku yidhaahdeen war ma nebigaa ka cararteen taabiciintu dee dagaaladii saxaabada iyo wixii mashkilad qabsatay may soo gaadhin qofkuna waxa aan soo gaadhin inta badan wuxuu is idhahdaa wallahi haddaad joogi lahayd nin ragaad noqon lahayd laakiin saxaabo rag dhaamaa ma joogin meesha hase yeeshee taariikhdu dee waxay warinaysaa marar la jebiyey saxaabada dabeetana intay baraa ibnu caazib saxaabi la yidhahdo u yimaadeen oo ka mid a saxaabada raggii ugu geesisanaa buu ka mid yahay futuuxaadka islaamiga waa raggii hogaaminayey ee goobta halkay ka galaan magac iyo maamuska ku lahaa ayay u yimaadeen waxay yidhaahdeen akuntum wallitum yowma xunayn ya aba camaara maalintii xunayn ma nebiga ka yaacdeen bay ku yidhaahdeen wuxuu yidhi waxaan markhaati ka ahay inaanu nebi maxamed cararin ee dadka qaar iska fudud iyo waxaan hub haysan iyo waxbaba inta iska dhinac galeen tiro badan ayay reer hawaasan meel u galeen niman gamuunka gaba yaqaana way haayeen adigu waa ciidan iminka meel galay oo madaafiic lagu adqaysiiyey waa madfacii waagaas oo haddee gamuunkan la ganayaaye dabeetana iyagoo aan iska dhaadayn baa gamuun mar qura sida roobka lagaga dhigay dadkii way yaaceen nebigu calayhi salaatu wasalaam marka horeba baqal buu fuushanaa dee baqalina ma dheeraysaba yacni kuma talagelin inuu cararaba muu jeesanine xaggii ciidanku u sii kacay weliba isagoo aan isqarinaynoo leh ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib isagoo leh anigu nebi baan ahay beenna sheegi maayo beenna maaha warkaasi waxaan ahay ina cabdilmualib isagoo leh nebigu calayhi salaatu wasalaam awowgii sheeganaya ayuu ka hor yimi ciidamadii yani waxay tilmaamaysaa dadkuna wuu sii yaacaya isaguna xagga cadowgu u socdaa weliba isma qarinayee kor buu u hadlayaa isagoo sheeganaya inuu nebigii ilaahay yahay subxaana wa tacaala oo ina cabdilmualib inuu yahay isagoo tilmaamaya dabeetana baraa baa wuxuu leeyahy kunaa wallahi ida axmara alba'su nataqi bihi dagaalku hadduu adkaado nebigaanu ku gaban jirnay buu yidhi ninka nebiga ugu dhow xadiidkan kale bukhaaraa warinaya idan ayaa laxiba nebigu calayhi salaatu wasalaam goob dagaal marka la joogana geesi buu ahaa aan fulaynimada aqoon bal siduu u qalbi adkaaya geesinimada u ahaa qalbi adayga waxaan uga jeedaa si aan cabsi u gelaynin waxaa garanaysaa xadiidkii bukhaariya iyadoo dagaal laga soo noqday oo nebigu calayhi salaatu wasalaam geed u hadhsanayo ayuu nin reer miyii soo galay ciidanka soo dhex maro intuu qaatay seeftii nebigu halkan suran intuu galka kala baxay ayuu isla dul taagay nebigu u leeyay man yamnacani minka
ونبي محمد وكلي جيت شيف الصحابة مركي هوري جيت كوبنا يونس هذين جيت كهرك على نبي وهذا شيف صدق وسيفتي سينا إنك كلاج عنتي سكوتشرته والنبي قلنا شيف كنا تاجين هي ووضع قفكو وأرجح لها هذا مال عدلا على جاهله وسيفت هذين إنك كلاج عنتي سكوتشرته وكل دول تاجين هي ونرجع الدفاع الهناك تادو تشجر أدنى وحبها يسنن أولي ولما من يمنعني منك يا كارد عناية والنبي قلنا لي يا الله كلسوني وربك كوغبا إلهي بايقا كارد عناية يعني وحي تلماميسا نبي عليه الصلاة والسلام سيدو سوق كلسونا يينان عبسدان وأقونين حتى يدو ووضعك كتشرو وفرديا مسا تشيفو وسيفتي سيلا لدول تاغن هاي وضعك عينكاسي حتى إنانو دقيقة حنينين أما سيانو عبسي كتشرين كدبنا ننكي با سيفتا كو عليي والنبي عليه الصلاة والسلام وحوكم الصبيري واسكع فيه وحان كور رمقرن مايو هدان الشيقنا عدالة ديس إلهي وحط المام يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ورددوا عدالة سمية بالليل أيضا وأيضا هارفارد يونيفرسيتي كلية دو قانون كي عنوان وقدقين صورين يعني أحسن تعبير عدالة كورمو إني تهي يقول المامية نبي عليه الصلاة والسلام وعدالة سمينشري بلانيقنا عدالة هوينكا intaynan cadaalad kaleba u gudbin ninkii guriga ku cadaalad sameeya de xaga kale ka cadaalad sameyn kara hadaad salaamaha iyo caruurta iyo intan u cadaalad samayso insha Allah xaga kalena wad cadaalad sameyn karaysa dulqaadkiisa iyo cadaaladiisa waxa ku tusinaya haweenku nabigu qabay qaar kamida way masayr badnaayeen qaarkood عائشة مسيري بيهيد iyadana inaan ahayd intuu nabigu qabay markaasi 2 iyo 3 yabaynu ka cabanaa waa 9 dumar ah dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam guriga Caasha buu yimi isagoo saxaabo kale la socdo waxoogaa cunno ay rabaan inay meesha ku cunaan Salama oo haweenku nabigu qabay kamida ayaa waxay ogeeyday guriga nabigana cunno badan oo lin marka waxay istiri armo nimanka nabiga la socday rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku filaan weyda waxoogaa guriga Caasha yaala waxoogaa kale iyana intay soo samaysay ayay u soo dirtay guriga Caasha aragtay Caasha way masayrtayo xeedadii kale la siday intay dhagax qaaday ku kicisay waa ka kala tuurtay xeedadii kale waa kala jabisay nabi maxamed hortiisa buu ayuu bagaga ku kala yiri rag baa la fadhiya nabiga calayhi salaatu wasalaam Caashana waxay samaysay waa muuqata nabiga hortiisa iyadoo dad uu la fadhiyo xeedadii loo siday bay kala tuurtay labana u kala jabisay ma caaroonin ma qaylinin nabigu intuu raashinkiisa iska gurtay buu wuxuu yiri غارت أمكم هو يدين واهناس طيب صحابتي كير النبي عليه الصلاة والسلام هو يدين وما صيرتي أما سواه ناس طيب راشين كيسينا وسكا قرطي لكن هو عدالة سبيه هدانا يسقوا عين كاله حردي كلا شبتين عاشو يسكو ركبه تادي في عنيدنا وقاضه وحولي بي قف كيسيدي راشين كوحولي وعلي قبردي كالنا بهالشيء حردي ده وعلي waxay tilmaamaysaa cadaaladda sidaan u kala soocaynin dadka oo waatii gabadha Quraysh intay wax haday Quraysh ay yiraahdeen nabiga ha laga hadlo ay yiri walladii nafsi biyadi law kanat Fatima bint Muhammad laqata'tu yadaha qofka wax haday cid kale daaya haduu ina nabi Muhammad ahaan lahaa gacantan goyn lahaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxba ha u shafaaca qaadinina dhaqankii nabiga calayhi salaatu wasalaam meeshaynu ka warranaaba meesha kale ka qurux badan iithaarka iyo siduu wax u bixinayay مثلا iyo ihsaanku sameynayay المقداد بن الأسود صحابي la yiraahdaa wuxuu yiri aniga iyo laba nin oo kale ila socda ayaa nabiga soo waajahnay buu yiri iyadoo gaajal daraadeed aan dhagaa wax ka maqlayn buu yiri
يعني عهد الصحابة كوات وسوقحين وسوهجرودين حول إياه وحي هيستين ودون على قلها هاري مقالة مدينة يربي مادين أهل الصفة ضد بدن بمساجد النبي قيسك شوقين وحبا هيسنين دبتنا المضاد بن أسود وحلية هي أنا قال يلا من نوكل أنا وقعت دراد ذهبت أسماعنا بول وأبصارنا من الجهد دقها أنا وحكم مقلنين أنا وحبطن كاركينين أيو النبي يسوع صبان دقني بيدي هدنا بريدنا وكحشوني يعني يقع عين كاسية عد وحنا سيسنا ما ننهلين بيدي نبي عليه الصلاة والسلام بيدي بيدي وربلنا كان صدح ذي بوك حي لكن محو النبي وهايستايا والسينية gurigiisa waxaa jooga 3 neef oo riyaa 3 neef oo riyaa buu yidhi hal liso waa 3daas guriga jooga buu yidhi intaasayna wada cabaynaaye inoo qaybiya wuxuu yidhi waanu nimaadnaa waa lisnaa dabeetana 3dayadu inin baanu cabnaa in yarna nebigaanu meel u dhignaa marka uu nebigu yimaado calayhi salaatu wasalaam ayuu salaanaan ka hurdana toosinayn ka soo jeedaana maqlaya buuna salaamaa intuu masaajidka soo galo tukado ayuu salaantaana salaamaa buu yidhi deetana waxaanu soo qaadnaa intii yaraydaanu isaga u dhigno intii baanu siinaa maalintii dambe ayuunbaa shaydaanku ii sheekeeyo waxaan idhi buu yidhi war nabi maxamed mala isagu kolley meelaha waxbuu ka soo helayaaye intaan soo kacay ayaan intiisi yaraydna ka laacay buu yidhi intii yaraydaan nabiga u dhigi jirnay waan soo kacay bilo xadiis saxiix muslimku ku yaala intii yaraydna waan cabbay buu yidhi markaan haddana cabbay ayuu shaydaan haddana ii warwar geliyo wuxuu yidhi buu yidhi way bal waxaad samaysay intii yarayda nabi maxamed baad cabtay maantuu ku habaari doona ee ahlu naarkaad ku biiraysaa ayaan haddana isidhi buu yidhi anigoo warwarsan aakhiriya adduun ma beeshay baan sidhi buu yidhi intaa yara caanay dabeetana waan soo kacay buu yidhi intaan shamladayda yareed soo qaatay marada yaraan sita buu yidhi haddaan xagga sare saarana caga ay muuqanaya haddaan xagga hoosana xagga sare ay muuqanaysa hurdaa iga soo degi weyday buu marada yareed baan isleeyahay huwa buu leeyo kolla madaxaan ku duuduubaa kolla cagahan geliya xagga sare ay qaawama yani xataa wuxuu wado ma haysto hurdaba way iga soo dhici weyday buu yidhi markaan cabbaar galgashay ee hurda iga iman weyday ayaan waxaan isku dayay buu yidhi inaan tala kala keeno waxaan sidhi buu yidhi war nebigii hadduu sidan ku yimaado oo gaajoodo oo ku habaaro ilaan liibaani mayside waxaan isku dayay buu yidhi inaan kaco oo muxuu samaynayaa marka kan middi baan soo qaatay buu yidhi dabeetana waxaan sidhi buu yidhi de haata nebigu yuu kugu gaajoone 3 mid qaloo nebiga u qala neefafkii yaraaye meesha joogay ayuu soo kacay markii aan imi ayuun baan arkay buu yidhi haddana neefkiiyo durbaba xigsimooday oo caana ku jiraan dabeetana waan lisay buu yidhi bisiriyihiiba haddana dib bay u darareen waan lisay buu yidhi xoorkaa ka soo duulay dabeetana waan soo qaado nebigaan u keenay buu yidhi nebigiiba wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam asharibtum sharabakum alleyla caana dee badan buu arkaa war caawa miyadan intiinii cabbin markaasaan idhi buu yidhi maya cabna ilaahay rasuulkiisiyo yaa rasuul allahi ishrab adigu cab baan idhi buu yidhi markaasuu cabbay dabeetana wuu ii dhiibay buu yidhi markaasaan idhi buu yidhi yaa rasuul allahi ishrab cab ishrab markaasuu cabbay markaasuu ii dhiibay markaasaan idhi buu yidhi cab ilaahay rasuulkiisiyo markii uu nebigu cabbay oo aan gartay buu yidhi inuu si fiican u cabbay oo markii hore weelku madhnaana nebigu uu duceeyo wuxuu yidhi allaahuma asqi man saqaana waaطcim man aطcamana buu ku duceeyey buu yidhi markii aan waxba ooline uu nebigu weelkii waxba ka waayey yaraa markaasaan qoslay buu yidhi oo dabeetana qosol baan la dhacay markaasuu wuxuu nebigu igu yidhi buu yidhi ixdaa sawaatika yaa miqdaad xumahaaga mid ka mida weeyaan maxaad samaysay buu igu yidhi buu yidhi waan u sheegay qisadii baan u sheegay buu yidhi
وارتني وانا حريص حق إلهي كتمية ما تقول هذا كلنا كعسيد بيقول هينا لعباني إلهي رسولك سوى هدين ولا بدأ نلعبنا عندنا دنكملي بيقول وحيت المامس النبي عليه الصلاة والسلام سيدا وإحسانك وسميني ما قلنا حريص بدنا الصحابة ديس وحين ذكرنا رقم كي النبي ميل كستا إنه شاقنه هدو هدلايو هذا الدقن وقف كستا أو دقيستا وترين كرو قيبي كرو أيو النبي عليه الصلاة والسلام كو هدلاي dad waaweyn iyo dad yaryarba si fiican buu ula dhaqmay caruurta hadduu soo maro sida saxiixaynka ku qoran caruur cayaaraysa hadduu soo maro nebigu wuu salaami jiray calayhi salaatu wasalaam siduu u naxariisanayo salaada isagoo ku jira ilmo yaroo ooyaya hadduu maqlo salaaduu u dadejin jiray si aan hooyadaasi u warwarin hooyadii ilmahaa dhashay si aanay uga warwarin ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam salaada ugu dadejinayay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa dadka shaqaalaha ee la jooga mid u samafala anas ibnu maalik baa wuxuu leeyahay nebiga 10 sannadood baan u shaqeeyey anas isagoo yarbaa hooyadii u keentay nebiga calayhi salaatu wasalaam si ugu khidmeeyo 10 sannadood baan nebiga u shaqaynayay buu yidhi wallaahi maa qaala uffin qatu walaa qaala lishayin لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا ولقي بيقولي وحن سمي النبي عليه الصلاة والسلام أف يقومون أف في اللغة العربية وكلمة تتضجر أو كلوية يعني واحد يركها هطي وحن سمي ولقي مكة هم بيقولي النبي وحن قبطينا إما أورانين محد ساوي قبم ويد ومن ديدين وحن كتجينا إما أوران بيقولي محد وحاول سمين ويد قياس قف شقالة وكو شقينا إياه oo 10 sannadood ku shaqeynayay oo wuxuu sameeyay waliga aanad oran waad xumaysay wuxuu ka tagayna aanad oran in maxad saayaysaa u yeeli weyday waa anaskii intaaba nabiga u shaqeynaya xadiiska saxiixaynka ku jira sida ku tilmaamaya walidaalika ayuha alahibba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa dhaqankiisa oo dhame mid wada tilmaamaya sida uu ula dhaqmayay ummadda dhammaanteed ku weyn iyo ku yar ku khaadima iyo ku caruur oo aan khaadimkiisa ahayn dhammaanteed waxay sheegaysaa dhaqankii nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa sidaa awgeed ma ka wada warrami karno akhlaaqiyaadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam waayo haddaynu isnaahna ka wada warran waa shareecada islaamiga oo dhammaystiran inaynu ka wada waranno waxyaabaha cajabta leh waxaa ka mid a markaa aynu soo qaadanno midhadh dulqaadkiisa iyo cafwigiisa iyo sida uu ula dhaqmayay saxaabadiisa iyo naxariistiisa ilaahay baaba ku leh fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan ghalida alqalbi lanfaduu min xawlik فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله آيات كان يقول ما يسودقين وحي سودقتي تقال كي وحد مركي لك علي قال هذا مركي هوري لك شبيي صحابة دي وحد شبيسي قيب كم ده أيام مالو النبي قود دريئنا إلى ليان أيك صياعين يقول سلاد قال شبطيه غنيمة وحققات قالت شبطة يا غنيمة وحققات وقتين السيرة كنا قانين خالد ماشي وسوي دارته أخيرا صحابة دي ولا تشبيه مركي اللي تشبيينا رقبر واسكفر فريست رقبر تدباتنية ولا دلي رقبر وعررو أردكي مدينو كو قليبا وابطبين توكا عررو مدينة كو قلي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحي النبرة كل دعي قدبو كل دعي برتي ماذا حق الشيء نبرنا ذي كم مدة الكها بربالة تشبيه ديك بالغا كاني صلاة فريقة كنت كذي مشاكل أدو بدن بان نبي كنا كل دعي وحاصر دي بود عضي أي إلهي وحلي فبما رحمة من الله لنت لهم أي فبسبب رحمة من الله لنت لهم نحرس حقا لك تمد ردد بدو نحرس تيبا إلهي لي سبحانه وتعالى وصحابة وادو نحريصتي إسكعفي
oo ilaahay dembi dhaaf u weydii oo taladana wax ka sii baa lagu yidhi weliba ragga akhtaadaa galay ayaa la leeyahay taladana wax ka sii baa lagu yidhi dee ilaahay baa qur-aanka wuxuu leeyahy wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin walidalik baa caaisha waxay leedahay nebi maxamed weligii dumar iyo caruur iyo qofba gacantiisa kuma dhufan saxaabada iyo dadkii la noole weligii qof gacantiisa kuma dhufan bal wuxuu soo maray axadu saxaaba ka qoslinaya saxaabada kale dabeetana isagoo sii jeeda oo aanu arkaynin oo uu saxaabada ka qoslinayo ayuu ul yarow nebigu sitay buu kelida kaga gujiyey saxaabigii baa booday dabeetana wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisiiyow waad i dhaawacday waan kaa goosanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi gooso xaq baad u leedahay gooso dabeetana wuxuu yidhi markaad aniga nabarka igu dhufatay kelidaydu way bannaanayd maray ma saarayn haddee adiga maraad seeta nebigu intuu maradii ka fayday buu yihi gooso waaye dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu qabsaday buu dhunkaday markaasuu wuxuu yidhi wuxuun baa rabay jidhkaygu inuu jidhkaaga gaadho ilaahay rasuulkiisiiyo yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu ugu naxariisanayey gaaladaa la yidhi habaar markaasuu yidhi innii lam ubcath lacaana wa inamaa bucithtu raxma saxiixu muslimka ku yaalla waar anaga layma soo dirin buu yidhi inaan mid dadka nacdala noqdo ee anoo naxariisa baa ilaahay soo diray buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa gaalo habaar bay ku yidhahdeen udcu cala almushrikiin bay ku yidhaahdeen dabeetana layma soo dirin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mid ilaahay cadhadiisa dadka kusii fogeeya inaan ahaye waxaa lay soo diray anigoo ah mid naxariisa ayuha alaxiba waxaynu garan karnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam cafwigiisii anas ibnu maalik baa wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin buu arrin ii dirtay markaasaan idhi buu yihi wallahi laa adhab wallahi inaanan tegaynin laakiin afkun baan ka idhi buu yidhi waxaan rabay inaan shaqada soo qabto waan baxay ciyaal meel ku cayaarayaan u imi buu yidhi waa inan yar kuwii baan iskala cayaaray buu yidhi cabaar markuu nebigu yaro waayey buu soo baxay uu ka daba yimi dabeetana anigoo cayaartii la wada buu yidhi buu qadaadka igu dhegay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasaan eegay buu yidhi inan yar oo shaqo loo diray oo iska cayaar tegey oo isagoo cayaaraya inta laga daba yimi halkan la qabtay kor baan eegay buu yidhi markaan arkay inuu nebigu yahay calayhi salaatu wasalaam ayuu nebigu qoslay buu yidhi war waxaan kuu diray miyaad qaban buu igu yidhi buu yidhi adhabta xaytu amartuka waa tegayaa buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waa tegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ma maagin ma dilin waa sii daayay sidii buu u baxay naxariistiisa waxaynu ka garan karnaa isagoo masaajidka jooga ayaa nin reer baadiyii soo galay masaajidkii nebigu dee kaarbat iyo waxaan ima jirin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisu cariish yar buu ahaa oo dushana laamahan timirtu caleemaheeda xagga sare oo roobku markuu doo intuu ka soo duso nebigu dhoobada ku sujuudo isagoo intan oo dhan dhooba tahay uu ka soo tooso caynkaasuu ahaa masaajidka nebigu calayhi salaatu wasalaam ciid buu ahaa dabeetana nin reer baadiyaa baa yimi masaajidka halkaa yaro damumu intuu iska faadhfaadho iskaga kaaji dabeetana saxaabadii baa ku qaylisay rag ka mida waxay idhaahdeen mah waa eraya ah dee la maagayo oo laleeyahy joojiya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi laa tusrimuuh dacuuh warkaadida ha ku goynine iska daaya buu nebigu le waa nin masaajid ku kaajaya nin masaajid ku kaajayuu nebigu u naxaya dabeetana wuxuu leeyahay kaadida ha ku goynina ee maxay sameeya iska daaya buu dhaha kaadi dhammayste markuu kaadida dhammaysto kadib baaldi biyo ah ku shuba buu wadaan biyo ah markaa ku shuba buu yihi way daahir noqonaysaa isagiina wuu yeedhay wuxuu ku yidhi ina hadihi almasaajid laa taslaxu lishayin min hada albal wariyaha ninkow masaajidku wax kaadiya iyo waxaasi uma cuntamaan meel kaadi iyo saxaro la keena maahee ilaahay dikrigii iyo salaad iyo qur-aan akhris baa loogu talagalay idinkuna ninkan waxba ha u geysanine kaadii de kollayba bilow haddaa ku qaylisaan meel kalunbuu la sii marayo ama isaga isnijaasayn ama meel kalunbuu sii nijaasayn waxba faa'iideyn mayso walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam aynkaa ku yidhi nebi maxamed
nebi buu ahaa oo rasuul buu ahaa calayhi salaatu wasalaam oo madaxweynu ahaa oo hogaamiye ummadeed buu ahaa oo qaadi buu ahaa oo siyaasigoodii buu ahaa waxaasoo dhan isagoo ah ayuu haddana wuxuu ahaa rajul mutawaadica oo foqorada iyo masaakiinta iskala fadhiista oo aan isweyneyni ku jirin oo bulshada aan cidnaba iska gaar yeelin bale wuxuu dabaqaya ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay tilka ad-daaru al-aakhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada taasi waa daarta aakhira baa ilaahay yidhi waxaan u diyaarinay daartaasoo leh kuwa aan adduunka korkiisa iskoraysiin iyo isla weyniye ku jirin iyo fasaad toona kuwaasaa leh nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu ku yidhi way saxaabadu nabiga way weyneynayeen haddana wuxuu ku yidhi ragga badhkood baa waxay leeyihin weliga iyo nabiga isha kamaanan buuxsan xataa weyneynayaan haddana wuxuu nabigu ku yidhi laa taturuuni kamaa atarat nasaara bnu maryam ha igu xadgudbinina siday nasaari ugu xadgudubtay maxay nebi ciise say u buunbuuninayeen bay waxay yidhaahdeen waa maxay waa ilaah iyo waa inay ilaah iyo wax la mida inamaa ana cabdun faquluu cabdullaahi warasuulih waxaan ahay addoon ee waxaad tidhaahdaan waa ilaahay addoonkii iyo rasuulkii dhaha sidaa idhaha buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxa ay tilmaamaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo maqaamkiisu uu sarreeyo aan taa muran ka taagnayn ilaahay baa qur-aankiisa maxay ku leh ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima ilaahay iyo malaa'igtiisuba waa ku salliyaan baa la yidhi nebi maxamed yacni salliga ilaahay waa athanaa waa ammaantiisaa laga sheegaa maxay almala'i laclaa rabu الsamaawaati waalardi baa addoonkiisaa yar ammaan uu ammaanaya u sheegaya malaa'ikatu lmuqarabiin malaa'igtuna ilaahay bay dembi dhaaf iyo naxariis u weydiinayaan ee dadkiina mu'miniinta ahowna ku salliya baa la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam salluu cala rasuul isagoo maqaamkaa jooga ayuu haddana isna wuxuu leeyahay hay weyneynina weynidiinna ha ku xadgudbinine waxaad tidhahdaan waa ilaahay addoonkii iyo rasuulkii nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu leeyahay aakul kamaa yaakulu alcabd wa ajlisu kamaa yajlisu alcabd sida addoonku waxu cunaan wuxuu cunayaa oo siduu u fadhiistaa baan u fadhiisanayaa isma weyneynayo bale saxaabadiisa waagii hore markuu dhex fadhiyo nimanka carbeed ee reer baadiye markay yimaadaan intay is dhex taagaan ayay odhan jireen ayukum muxamed warkeebaa muxamed ah yacni kamuu soocnayn qofka qariibkii markuu yimaado keebaa nebigiiya wax calaamo ah oo muujinaysa muu lahayn ilaahay markii dambe saxaabadu yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisa waa dekad yar meel yaroo yara kursi oo kale kuu samayno si qofka yimaadee raba inuu wax ku weydiiya uu kuu arko kuu garto bale nebigu wuxuu yihi low uhdiya ilaya kuraacun laqabiltu walow ducitu calayhi lah haddii laygu yeedho cumaacum waan aqbalayaa yacni waa karaacinkan aynu sheegnayo lafaha yar haddii laygu casuumo buu nebigu leeyahy oo laygu yeedho waan yeelayaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam bale nebi maxamed wuxuu tilmaamaya ninka qalbigiisa isla weynay ku jirto inaanu janno gelaynin sida daraaddeed ayay mararka qaarkood hadiyad waxay ugu keenayeen subag xataa urtiisu isbedeshay siduu u raagay markaasuu ka qaadanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam meeshuu fadhiistaa dhulkuu fadhiisan jiray dermo yaroo iska caadiyay iyo basaadba uu ku fadhiisan jiray bale wuu ku seexan jiray oo intuu ku seexdo ayay jidhkiisa ku sawirmi jirtay nebigu calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisa markaynu eegno adduunku wax weyn ulama muuqanin see daraaddeed buu ashad innaas ahaa adduunka qofka ugu zuhdi badan leh zuhdigu waa maxay zuhdigu waa inaan qofka adduunku qalbigiisa degin walidaalika nebi maxamed markuu furaashale uu ku seexan jiray oo markuu saan helo saantaasu iskaga jiifsan jiray oo markuu salli helo salliguu ku jiifsan jiray
oo markaanu intaa midna helin dhulku iska siifsan jiray may ku ahayn meesha la seexdo iyo waxa la cunaa wax weyn agtiisa kama yahay Anas ibn Malik baa wuxuu leeyahay دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على صرير مزمول بالشريط وتحت الرأس وسادة من أدم أما عمر بن الخطاب وصوق علي مركز صور كي النبي عليه الصلاة والسلام يمشى وتشيفه مركز عمر أوي مركز النبي كويل محاكا عمر باوح لي وما لي لا أبكي وكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا وأنت على الحال الذي أرى فيه إلى الرسول كسيو محل أوي ويبولي كسرى إياه محي قيصر لابد بقرتو إياه مركز الدنيا دك وحوق بدنا نو حل أوي يكون نولي أدقو إلهي الرسول كسينا هالكاسات شيفتاي نبي حكوا له ما أدخل لك وهينين ينادون كياشان إن أنا آخر يالنا كما والم النبي عليه الصلاة والسلام عائشة waxay leedahay waxaanu soo maray nolol laba bilood oo isku soo wareega yani saddex hilaal aan guriga nabiga dab laga shidin saxaabi ninkii weydiinayay taabiciga baa wuxuu yiri hada maxaa cunaysay guriga hadan dab lagu shidin ala swadaan bay ku tiri in biyaaya inta miraan isku cunaynay nabiga alayhi salaatu wasalaam habeenu seexan jiray isagoo calooshiisu marantay bal isaga iyo Abi Bakar iyo Umar ayaa mid waliba goor duhura gurigiisa ka soo baxay isagoo gaajo soo saartay war maxay idin soo saaro mid waliba leeyahay rasuulkiisa iyo gaajo iga keentay gurigii qiyaas ummadda saddexdii nin ee ugu sareeyay nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam iyo labadiisa saxaabi gaajo isu keentay ee suuqa isugu yimaadeen dabeetana saxaabi baa ka naxay oo kaxeeyo neef yar u qalay intii markay cuneen أيو نبي وحكوا محي لا تسألن يومئذ عن النعيم نمعضة وهل مري وحنان نمعدا والدي ويديني يا أبو نبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة وحاها النبي عليه الصلاة والسلام كنا يفعل يماله كلام بلا قرقيس الدبل غشدين كتمر يوحي على بسكعونه مع ذلك مركي أدونكو بدني صوغ على مسلمين تحوغيستي دولتها فرتين العقد هلنا وقيبين يا النبي عليه الصلاة والسلام يسووا ما أركينين إلا يهوين كي سقارين هذين بيلك كرديو آيات كقرآن في سورة الأحزاب كشراي سود دقين ولا النبي عليه الصلاة والسلام وحط المامية واحد كقران كرتا هوين إلا بعرورة وضعتا قرقي نبي محمد وباهي تكتو دورستي عايشة وتكتو وحويديستي عاشا واحد يقول قريقان باريو هل حبضو تمران كهلاي قريدانو انت الله بارا حبض تمران لغا هلا قياس حبض تمران هلاي بيلاد حبض ديمانو ديبي بيتري قبردي لبا هبلودو يري ودتي انت وكلا جيخداي سيسay hooyadiina may cunine markaas nabiga u sheegay beelada maasuu nabigu yiri qofka lagu itixaamo dumarkaasi ee u sabra ee koriya in ilaahi subhanahu wa ta'ala janna siinayo tilmaamo ولذلك ايها الاحبه صحابته waxay dhahay nabi maxamed wuxuu dunida ka tagay isagoo khubus shaciir laga sameeyay ka dhargin shaciirku iminka dunidan horumarta xoolaha la siiyo dadku ma cuno hadda waa qamadiyaan nooca loo dhigo xoolaha hadda dadku ma isticmaalo ahdigaana waxyaaba ugu fiican ee dadba haystay bay ahayd markaas la leeyahay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam hatta shaciirkaasi kama dhargin وما وحلام به ما النبي وحابه كد عيسيني اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا نوحنا أنا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا صماها نبي عليه الصلاة والسلام حورني اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا إلى أورر نبي محمد وحي عنان وحكو في الله دون كردك maalintooda wax ku filaada soo ma ogid nabi maxamed inuu dunida ka tagay isagoo diriciisi hubkiisi dagaal nin yahuudiya 30 saaco raashino uu ka qaatay uu rahman yahay nabi maxamed wuxuu dunida ka tagay alayhi salaatu wasalaam diriciisi dagaalku isagoo uu rahman yahay maxay waxoogaa galaamo
ونين يهودي كأمانيستي أما كأماهضي. ولذلك أيها الأحبة هذين نسرنا والرمى في زهده عاوة مرة ما ينكرنه وحا حديث كسو أروري لكن وحا أنشع على هيون إن نطف تصالة وندنسيه. نبي عليه الصلاة والسلام حدودك إله إلا لهانا حدودك وفي عنبوها isagoo aynu nolosha ka warannay ayuu haddana habeen cibaado u taagnaa ilaa iyo gumadu ka bararaysay cagu barareen dabeetana waxay ku yidhaahdeen Aisha waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow maad iska nasatid saw kuwan maaha ilaahay baa dembigaagii hore iyo kii dambaba dhaafay nebiguna wuxuu ku yidhi afalaa akuuna cabdan shakuura oo miyaanan ahaanaynin addoon mahadnaqa innaga ninka sidaa u gaajoodaa wuxuu odhan lahaa maxaan haystaa baddi أنا أسكت حنايا ساعة كمان يعني نلاش عين كان النبي جوح وين وسبيني نسقى عين كاسيو أنتو صلاة ستاجو هذانا عجاه هوسي أي برريين يسقى على محي عبدا شكورا ميانا نقونين هبين كي مركو صلاة ستاجو وحلا هذا جو في سوا حلا مغلي شري أزير كأزير المرج سيدا درجة كرية كليجي مركو ينبغ عليه الصلاة والسلام عبادة سنيو صاصي لابتيس وكرجرت. أيها الأحبة وحابين لأن ينبغ عليه الصلاة والسلام مد نفي النفيس بكو بحياة إنه إلهي الدين تسددك وغياره. هل حديث بني ينيدين كشيغيا انت يمكي وحبك أقبل ويدي وكب حيبو يسيري بل طائف تقو حشي وحبوي كسو أقبل وين بل إنك حبيك كسو صاري يسوق مهموم وصابح دبتنا إلهي بان ملقو صادري وحل ويديني يا هدو نبي محمد ربان مكا لبدا بورودة هريراك حيقا انت كور لو قادو ايا دوشا لغا قرنو فنايا ولا حوالا يا قبي جيدبا adiga warkaaga la sugayaa buu malakul jibriil ku yiri malakul jibaal baa meesha jooga malagii buuraha ka wakiilka hayo haddaad tidhaahdo buuraha ku dabool uu ku daboolaya wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam sabirkiisa iyo xilmigiisa iyo dulqaadkiisa maya dhabarkoodan waxaan ka rajaynayaa in ilaahay ka soo saaro kuwa ilaahay caabuda waan cidna ugu shariig yeelin hadday adiga gaalo ku dhibto oo magaaladan kaa saarto waxba ka aqbali waayo waad xagga iyo jarmalka u kacdo dhagax lagaaga soo saaro maxaad odhan lahayd ilaahu labadaba dhulka la gooyo lagu yidhaahdo dhulka ma lala gooyaa ilaahu xabadaa ka sii daynin ayaad adigu odhan lahayd nabi maxamedna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa gaalo kuwanu ka hadlaya dhabarkoodan waxaan ka rajaynayaa buu leeyahay man yacbud allaha waxdahu laa yushriku bihi shaya yani waxay tilmaamaysaa dulqaadkiisa iyo xilmigiisa iyo rajada uu ilaahay ka qabay aanu rajo go'aynin iyo dacwadiisa siduu taacad ugu yahay iyo siduu bini aadamka ugu naxariisanaya iyagoo gaalo aanu rabin in ilaahay gaalnimada ku gumaado ee uu rabo in la badbaadiyo siduu dad ugu naxariisanaya waxaad ka garan kartaa wiilkii yaraaye u yimi ee yidhi ilaahay rasuulkiisiya waxaan rabaa buu yidhi inaad aniga zinada iyo ogolaatid aniga hallay fasaxa buu leeyay suuqaan gelayaay qiyaas wiil dhallinyaraa oo soo socda oo nabi maxamed intuu u yimi ku leh aniga ha laygu sii daayo suuqa dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam udnub soo dhowow buu yidhi soo dhowow wuu soo dhoweeyey halkuu fadhiisiiyey si caqli uu ku jira buu u qanciyey wuxuu ku yidhi wiilow hooyadaa miyaad la rabtaa waxaad sheegayso may buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo hooyada in laga zinaysta mee ma rabo dumarka kalena qaar bay hooye u yihiin buu ku yidhi walaashaa ma la rabtaa may buu yidhi eedadaa ma la rabtaa may habarya intii isaga caarkiisa ahayda ku wareegsanayd buu nebigu mid ugu sheegay mid walba wuxuu idhaahdaa may dumarka in loo soo dhowaado ma rabo dabeetana nebigu wuxuu yidhi kuwan kale aad ku socotaana ragunbay habaryartood iyo eedadood iyo hooyadood iyo walaashood iyo inantoodii yihiin dadkuna lama rabaan buu yidhi kuwooda iyaguna danadadu kuwiina la rabin dadkuna kuwooda lama rabaan buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markii dambe intuu gacanta laabta ka saaray buu u duceeyey ilaahayow dembigiisana dhaaf farjigiisana u xifdi raawiga xadiidka warinaya wuxuu yidhi wiilkii ducadiisii nebiga alla u aqbalo dumarkaba sidaa uma eegi jirin dumarkaas uu markaan lahaa laygu sii daayo markii dambe danka ma lahayn iimaankiisaa koray
waxaan uga jeedaa haddaan is idhaahno ka warrama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo akhlaaqdiisii hal qodob oo aynu ka waranno ayaa wakhtigaa qaadi lahaa haddaynu ama dulqaadkiisa ka waranno ama cafugiisa ama xilmigiisa ama geesinimadiisa ama sabirkiisa ama deeqdiisa ama waxbixintiisa ama midkaynu isnaana ka warramo caawa ku dhammayn lahayn laakiin waxaan uga jeedaa nutafun min xayaatii inaynu tilmaamno aynu aragno nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rajul cadiima siduu ahaa waxaa gaaladu sheegayaan wax u dhow inaanu ahayn goorahan baa cabdirasaaq baa agtayda fadhiyay idina waa daasheen baan filayaa halkaasaan kusoo koobaya wassalaamu calaykum waraxmat ullahi